السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت عشر كنفقد وحقوقها لأن هدي الله إنه فائدوين كعانها جيلة فائدوين كعانها جيلة كلية ما أنت كمسوا كوبي كرنا لكن واحد أسكت إن هدي الله يود الإدمان وحير كتابنا فائدة عانها جيلة وحكم ذا إن كفائدة بديهن عانها يوغ كلا سيدا عانها لقضة يا أرجع سيدا كلا عانها جيلة وحى كتره فيتامين بدن sida vitamin B iyo vitamin C sidoo kale caanaha geela waxa laga helaa calcium iyo phosphorus calciumka wuxuu naga caawiyaa adayga lafaha iyo inaysan lafuhu jajabin sidoo kale caanaha geela waxay hodan ku yihiin waxa loo yaqaan birta ama ironka taasoo laga helo 10 jeer ka badan inta laga helo lo'da ayonta laga helo caanaha geela waxay ka badan tahay inta laga helo kuwa lo'da oo waxa badan kuwa geela inta laga helo taasoo macnaheedu yahay in ay u fiican tahay si gaar ahaaneed hooyada uurka leh iyo dadka dhiig la'aanta hayso caanaha geela waxa ku jira maadooyin difaaca jirka kuwaas oo yareeya fursadaha qaar kamid ah cudurrada halista ah sida dhiig karka iyo sokorta heerka dufanta ee ku jirta caanaha geela way ka yar yihiin kuwa ku jira caanayowga kale oo waxa yar caanaha geela dufanta laga helo taasoo naga ilaalisay cayilka iyo sidoo kale cudurrada hoos ku jira dufanta sida cholesterolka kale iyo inay naga ilaaliyaan caanaha geela waxay ka hortagaan jeermiska iyo sunta jirka soo weerarta sidoo kale waxay la dagaalamaan bakteeriyada wayna tirtiraan waxay difaacaan cuntada dhibi karta mindhicirada bakteeriyada wayna ka dilaan sababtoo ah waxa jirta hadda in Soomaalida markay ilmuhu yar yihiin 2 sano ilmuhu markuu jiro caanaha in laga joojiyo oo cunada lagu bilaabo oo la dhaho caanaha la joojiyo cunada lagu bilaabo taasoo qofkii markuu weynaado Soomaalida gaar ahaan markay weynaadaan ay markastaba ay la qabsaneen caanihii markay cabaan caanaha musqushay aadayaan calooshooda ma aysan baran lamana aysan qabsan marka ilmaha ilaa intuu ka koriyo intuu qofku weynaanayo waa inuu caanaha cabaa hadba caanuhu heli kara waxaan ugu faa'iido badan caanaha geela haddii kale hadhowtu waxay noqonaysaa inaan markasta calooshii ay si fudud saxarada kaaga imaato oo u dul qaadan weydid sababtoo ah ma aysan baran laakiin dadka bartay ayagoo yar ilaa ay ka weynaanayaan oo 3 galaas maalintii ka caba caanaha way ka adkaysi badan yihiin dadkan kale oo markasta calooshooda ma jilcisana ee caadi bay tahay calooshooda sidoo kale caanaha geela waxa laga helaa isku dheelitirnaanta sidoo kale waxa jira cudurro la xiriira caanayowga kale sida caanaha lo'da kale laakiinse in caanaha geela laga ma helo wax cudur ah caanaha geela waa daawo waxayna daawo u yihiin dadkoo dhan caruur iyo ciroolaba rag iyo dumarba khaasatan waxay aad ugu fiican yihiin ilmaha autism-ka qaba ilmaha laclacay waxaas la dhaho caanaha iyo biyaha caanayowga kale lama sii laakiin caanaha geela bay daawo u tahay heerka biyaha ee ku jira caanaha geela way ka badan yihiin kuwa kale caanayowga kale inta ku jirta oo dadka reemiga ah caana geel kaliya bay ku noolaan karaan biyo la'aantood sidoo kale waxa jira dadka reemiga si guud ahaaneed iyo dadka geeleydaba si gaar ahaaneedba way ka caafimaad badan yihiin dadka kale waxaana keenaya waa caanaha geela iyo hilibka geela sidoo kale hadda waxa khubarada cilmiyahanada ay isku taxaluujinayaan inay ka soo sameeyaan caanaha geela saabuuno iyo caano booraha kale ama ay hagaajinayaan ay meel kasta dal iyo dibadba ay geenayaan haddaan Soomaalinahay dalkeena caana geela waa laga helaa geela waa dhaqanaa waa inaan ka faa'iideysano waa nicmo Ilaahayna siiyay marka waa inaan ka faa'iideysano caanaha geela caruurta inta yaryar yihiin la baro ilaa inta ay ka weynaanayaan dadka qofka awooda maalinta 3 galaas inuu cabo caanaha waxay ka qayb qaataan koritaanka ilmaha markuu yar yahay iyo dadka waaweynba dherarka dadka Ilaahay waa u bixiya laakiin caanaha geela aad bay uga qayb qaataan caanaha dhan khaasatan caanaha geelna way ka sii qayb qaataan dadka caanaha geela lagu koriyay dadka kale way ka dheer yihiin cashirkeena maanta intaas ku saabsan yahay wixii su'aalo ay weydiin kartaan anoo dhiig la'aan yahay sada caanaha geel isticmaal dhiig ma ii soo celinayaan
فيتامينات كتير فيتامين سي وفيتامين بي ايرون وكتير ديجا وسوحيسان هويدا أوركلا هويدا أشياء تذكر ديجا الآن تقبل ولوك يعني هدي علشك حنون اسمك استعماشت على الحمد لله كنا ودعت مرتقى ولا عروسات أحسن هاي على وش البيت مثلا تقدر عنها استعمال عادي اوكي ما تسني السلام عليكم maanta cashirkeen wuxuu ku saabsan yahay transactional analysis wax la dhahayo transactional analysis-kana waxay ka mid tahay communication-ka qayb ka mid ah waa communication-ka ama xiriirka qofka marka horka qofta bini'aadanka ah saddex wuxuu noqon karaa saddexdaas waxaa waaye marka hore horta waxaa tahay cunug yar haddana waxaa noqonaysaa qof weyn Englishka waxaa la dhahaa adult haddana waxaa noqonaysaa waalid parent saddexda stage qofka isticmaalaa markuu go'aan gaarayo markuu dadka kale la dhaqmayo kan ugu horeeya stage-ka ugu horeeya waxaa waaye the parent ama waalidka marka stage-kaas cunuga yar waalidka markuu la joogo waalidka wuxuu u dhiibaa cajaladaas waxaa ku duuban waxyaalihii uu ku isticmaali lahay noloshiisa tusaale hadda waxaa laga yaabaa hooyada inay ku dhahdo dadaada garanaynin hala hadlin cajaladan recordingka waxay bilaabaysaa cunuga markuu jiro 5 sano waxa ku duubanne waxay saameyn ku lahaanaysaa bulshadii iyo dadka la nooleed saa ula dhaqmi lahayd inta badanne kulligeen saa u wada ognahay hooyada Soomaaliyeed way stressan tahay depression ay qabtaa taas marka waxay ku tusaysaa cajaladaas information-ka ku duuban inuu yahay 60% mid qalad ah ama 70% mid qalad yahay 30% uu yahay mid sax ah qofka bini'aadanka marka noloshiisa codkiya ku duuban markuu go'aan gaari rabo wuxuu dareemayaa hooyadiisa oo dhihi jirtay waxaan amal hooy hadaa aragtid saan isaan u sameey waxaan hadee ka hor imaadaan saana loo jawaaba waa guideline-kii marka guideline-kaadi ama maabkaadi hadduu qaldan yahay maxaa imaanayso noloshaadi dad badan inaa isku dhacdiin adiga inaa isfahmi weysid bulshada ay ku fahmi weyso inta badan waxaa yar horta society-geena hooyo wax supportive ah ama wax productive ah cunuga cajaladiisa ugu duubi karto because iyadii cajalada ay wadato waxaa waay cajalad distorted ama waxyaalaha ka qaldan mana ka ahan cunugi information qaldan u dhiib waa intay haysatay informationki then qofka cunug dadku ay kala nasiib badan yihiin qof waxaa jira cajaladu wato ay ku duuban yihiin wax supportive ah wax uu isticmaali karo then waxaa la imaa stage-ki child-ka ahay markaa cunug tahay waxa u baahan waxyaalo badan u baahan tahay baahi badan ku hayso baahiyooyinkaas waxaa ka mid ah in lagu aqbalo acceptance waxaa kaloo ka mid ah in lagu jeclaado marka situation-no waxaa arkaysaa qof waxyaalahaas haddii la siin waayo daryeelkii cunuga uu u baahnaa asoo weyn madaxiisa qayb waxaa jirto sida u dhaqmaysa ciyaal waxaa laga yaabaa inaa wax ka qaadatid uu ku dhaho waxayga maxay iga qaadatay marka wuxuu isticmaalayaa side-ki cunuga markuu isticmaalayo side-ki waalidnimadane waxaa laga yaabaa inuu soo koriyo waalid very strict ah ooba qalad ogolaanaynin markaas waxaa laga yaabaa qofkii wax intuu qaldo uu dhaho doqona ahayd maxaa u qalda uu iscadaabo qofkii ama uu isciqaabo waalidkaasna waxaa la punitive parent tan kale waxaa waaye the adult marka adultki wuxuu u dhaxeeyaa parentki iyo childki waxaan aan sheegayana waxaa waaye waxa isticmaashid oo caqligaada ku jiro informationka waalidka ka soo qaadatay informationki markaa yareed qaadatay iyo adigii hadda qof weyn ah badanaan dadka waxaa aragnaa marmar iyagoo u dhaqmay sida waalidkooda camal waalid negative qofka hadduu soo koriye waxaa arkaysaa ciyaalkii ama saaxiibadiis wuxuu la dhaqmay si negative ah mana garan karo inuu isticmaalayo dhinaca waalidka oo very strict ka ahay marmar waxaa arkaysaa qofkii oo wax yar ku xanaaqaayo waxyaalo ciyaalka ay sameeyeen waxay tuuraan ciyaalka wax la dhahay tantrums oo waxa daa ka qaadato cunug maanta dhan uu weynaa waaw waxaa arkaysaa qof
weyn oo adult ah oo waxyaalo macquulgal ahayn wax weyn ku samaynayo maalin kastana way dhacdaa guryaheena ka aragnaa marka qofka bini'aadanka markuu og yahay saddexdaas cod inuu maskaxdiisa u isticmaalo ama saddexdaas positions wuxuu ogaan karaa si u balance garayn lahaa markaa aragtid inaad dhehaysid waxaanaa rabaa mana ka laabanayo ayna tahay waxyaalo aad ka laaban kartid ogaaw inaad isticmaalaysid dhinaci parentka haddaa aragtid adoo wax yar ku qaylinaysid ama waxyaalo sensitive noqonaysid markii waxaa laga yaabaa hadda shaqo inaad raadsatay shaqadii nin xanaaqsana u tagtay si xun kula soo hadlay waxaa rajaynaysa in lagu aqbalo in si fiican lagula hadlo that waxaa la rejection cunuga markuu yar yahayna waxyaalaha ugu xun uu ka qaracmo waxaa waaye hooyadiis markay dhahdo waa kaa tagaa ma ku rabi marka dhinaca jacaylka waxaa ku xiran waxaa ku qufulan ka cara rejectionka ama diidmada markii loo soo diido qofkii shaqadii wuxuu dhahaa marka waxa ahay ma lahan cawadoo dhan ma seexanayo waxaa laga yaabaa hal week dhan inuu stress garaysnaado markaas waxaa lagaa rabaa inaad ogaatid waxaa isticmaalayaa dhinaca jacaylka shaqadan haddii liisoo diida mid kala heli karaa marka adultkana waxaa waaye qofka go-aanka markasta gaaro qaybta go-aanka markasta gaarta waay qofka adultko very healthy ama qofka weyn oo caafimaad kale emotionally dareen ahaan wuxuu sameeyaa kama aamuso dhinaca waalidka oo wuxuu qaataa waalidka sharciyadii ruleski ama informationkii wanaagsanaa uu soo dhiibay dhinacii cunugan wuu fiiriyaa okay markaa yaraa waa lii xumeeye wax idaryeelo ma lahan marka hadda waxaa samayn karaa inaa isdaryeelo waayo baahidii meeshii maqneed inaa buuxiyo waayo wuu buuxiyaa that way qofka wuxuu yeelanayaa marka nolol balanced ah maanta cashirkeen intaasu ku saabsan yahay su-aal yaa qabo waxaan weydiin lahaa jamiilo hal su-aal su-aashaasoo ay tahay caruurta haddaan hanay hooyooyinka soomaaliyeed caruurta waxaa wax yariisa ciyaal kale ka qaadanaya uu oynayaa sidee baan uga hortegi karnaa waxyaalahaas caruurta ku dhacaya mana ka qabano badanaa ma dhahno waryaaba kaa yarihi kan kala sii laakiin inaan waxaa dhici karta alxaqul miisaan sababa inaan labada u kala eexan badanaa waxaa suubinaa u kala eexanaa kan wuxuu kan ku saxsan yahay kan kale u suubinaa marka sidee baan uga hortegi karnaa waxaan hanay youthki bedel lahaa dalka okay haddaan ku celiyo su-aasha saa u fahmaa ku sheegaa waxaa waa ciyaalka markay isla ciyaarayaan ama alaab isla qaybsanayaan waxaa jira waalid mid ka qaadaayo mid kalena u diidaayo u kala eexanayo soo maahan see u istaajin lahayn horta aa ogaado waalidka cunugan la siiye hadduu cunugii dhal labada cunug u dhalay waxaa waaye hadiyad ilaahay ka imaatay ciyaalkaadan hadday arkaan inaad u kala eexanaysid waxaa ogaataa inaad dhaawacday dareenkiisa iyo maskaxdiisa korniiska intay kori lahayd ilaah ugu talagalay marka waalidka waxaa looga baahan yahay ciyaalkiisa equally ama si maxaa la dhahaa sinaan inuu u koriyo ha noqoto dhinaca financially ha noqoto dhinaca dareemaha emotionally iyo wax walbaba ha noqoto dhinaca guriga inuuna dhihin kan tan ah wax ma fahanto tanaa fariid ah tanaa maxaa la furfuran tan maskiin waayo tan wax ma fahansanabo weligeed saanay ii dhibi jirtay ciyaalkaada inaa kala garatid waayo dabeecadahooda shaksiyadooda say wax u kala fahmaan say wax u kala xalistaan because hooyadii waxay tahay warshadii cajaladii adaa u dhiibaysa cunugaada hadhooti waxaa arkay hadda waa aragteen waxaa arkaysidnama oo horiya usoo aragteen waxaa arkay laba gabdhood oo sheekaysanayo midaa wax soo baxsanaysa midaa waxay dheheen waxaa waaye wax qurun ah codkii waalidka hadlaayo cajaladaas yaa usoo dhiibe waxaan wax xun waayo ma adduunyadan waa nace haddana waxay isticmaalaysaa dhinaca waalidka marka haddana okay waxaa kaloo arkaysa qof maanta dhan calacale oo alla waxaan hadaaysan lahay wuxuu isticmaalaya dhinaca jacaylka ahay marka waalidka waxaa looga baahan yahay horta ciyaalkiisa sinaan inuu tuso waa waajib saaran qalad waayo cunugaana kaa yara sii markaad leedahay waa dhaqan soomaalidu foolxuna isticmaasho hadhowta cunugaan yar waxbuu boobayaa tuug buu noqonayaa ad wax boobaysid ma fahamte kana maskaxdiibaad ka dhaawacaysaa marka waxaa lagaa rabaa ka yar wixiisa war waxaasaa le mobaylkaanaad leedahay ho inaad tiraahid wax kale ma lihid kana aad tiri adaa waxaa iskale
laakiin markaa midka weyn aad ka qaado ka yar siiso ka yar hadhow mooryaan buu kaa noqonayaa wax arkan waa dhacaya marka waa qalad dhaqankeena ka socda hadda waa isboobeena xasu boobeyne mid baa wax looga boobay marka waa qalad diinteenuna ma ogola wax badan baa wadaadadu ku hadleen arrintaas oo waxay dhaheen ka joojiye ilmaha wax looga qaadayo oo kii kale intuu oo xagga istaagayo qalbi xumaanayo waa dhaawacday kana waxaad ka dhigtay tuug marka taas maskaxda ku haya jamiila hadalkay sheegaysa waa saxan yahay qalad ma ahan wax walba waxay ka imaadaan waalidiinta siiba hooyada iyo aabbaha qofna waxaa koriyo aabbo qofna waxaa koriyo hooyo aniga hooyo ma arkin laakiinse aabbaan arkeen si fiican ayuu ii abaabiyey abaantiisana hadeertaan ilaa hadeertaan waxaa heerkan kusoo gaaray aabbeen noloshiisa waadna ku mahadsanta waalidka ah ka hadashay assalaamu calaykum midda kale waxaa rabaa inaan ii sheego yacni soomaali haddaan nahay dhaqankii iyo diinta waa isku qasnaa waxyaalaha waxaa jirta dhaqankeena u diidaayo waxyaalaha waxaa jirta ee diinta diidayso waxyaalaha dhaqanka u diidaayo diinta horta la fiiriyaa diinta waxa maxay ka qabtaa diinta hadday ogashahay waa inaan ku dhaqaaqnaa dhaqanka hadduu ogol yahay dhaqankii diintii aa dambaysiini lahaa dhaqanka waa inuu mar walba dambeeyaa diinta ay horeysaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi ina allaha laa yastaxyi min alxaqi ilaahay kama xishooda waxa xaq ah waxa xaq inaa sheegna waaye nabiga sal allahu alay slam wuxuu yidhi quli ilxaqa walow kaana murra xaqa sheer xaqa waxa la yidhi dadka u sheeg ilaa uu ka qararnaada dacar hadduu raba ka qararnaada xaq inaa isku sheegnaa waaye soomaali haddaana waxaa la rabaa inaan maxaa sheeg dhaqamaadka xun aan ilaa iyo jiilka jiil aan iska dhaxalnay inaan bedelnaa loo baahan yahay inaan waxaa loo baahan yahay waxay diinta noo sheegaysa aan dabaqno waxa hadda aan sheegayna wax weyn ma aha waa wax diinta ay noo sheegaysa ee dabaqayso inaan dabaqnaa loo baahan yahay midda koowaad midda kale waxaan rabnaa guryaha soomaalida inaan dhisno soomaali haddaan nahay guryaha soomaalida waxay u badan yihiin inay dadka isqaba inay isfuraan ama waxay u badan yihiin dadkii wada noolaa inay farxad ay haysanin maalooba madaxa laga qabta naagtii ninkii meeshan uu ka calaacalaayo dadkii wada noolaa oo ilaahay yiri ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay liyas markii labada qof ay is aroostaan liyaskunu ilaaha inaa ku deganaansho iyo xasilooni inaa ku heshiin example aan sinaya nabiga sallallahu alayhi wasallam yaa ku dayanaa qudwa xasan yaa noo ah role model kaniya waa qofka aan fiirsano haddii aan ka waran nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka arkaayo romance love uu sameeyay maxaa dhaysin waxa ay sheegtay mustaxiil waxa leeyahay waay nabiga waxa jirtay markuu u sheegay uu rabo inuu meel aad duulaan ha noqoto masax kala ahaato dumarkiisa wuxuu u tuuri jiray qorituur malda qorituur uu sameyn jiray xaasaskiisa mid kamid ah araac jirtay xaaski ma xasuusto igara leeyahay laakiin waxa la yiri geelka markay ifuulayso waxa la yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu fadhiistay garabkiisa intaqana ee ku fuushay geelka ninkas baan aadan maanta sameeyay waxa jira cadaanka xataa ku dhahay romance aqana ma intuu fadhiisto ma yeelaa garabkiisa la fuulo fiiriye bal subhanallah intuu la egyahay fiir romance kas jaceelkaas uu tusinaayo waa meel qabliga maybe wala arkay intuu fadhiistay nabiga sallallahu alayhi wasallam garbihiisa ay ku istaagtay ee geel ku fuushay subhanallah wax la leeyahay waa mustaxiila waxa loo baahan yahay ku dayano nimanka ma oga saas waa inaa u sheegtiin sax okay midda kale waxa waa wax jacayl kale u baahan yahay waxa waa affectionate love waxa waa labada qof oo badan isheeg oo isqabo uu ka dhaxdhacaa in yani jacaylka uu qof ninkeeda uu qabo uu dareensiyo through touching ama haduu inuu taabto inuu shumiyo waxaas oo kale waxaas oo dhan waa ka xishoona anaga dhaqankeena oo diidayo waxaan u qabnaa ceeb inay tahay ceebta xagee joogtaa laba qof oo isqaba haday shumiyaan ilaahay waxaan sheegay labadan qof xalaal uu isugu talagale haduu xaaska ninkeeda shumiso mise ninka uu xaaska shumiyo maxaa dhib ku jiro nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu maaday nin mar caraabi ah oo baalka shay rabaadiye ah markaas wuxuu ku yiri ma aqaan ilmihiisa ma aqaan wuxuu yiri waligeey ma dhunkan uu yiri ilmihii mid kamid ah ma dhunkan wuxuu yiri nabiga kan xariista waxa yara ka maqan uu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tagay intuu qabtay xasan iyo xuseen ilmuhu uu yahay uu shumin jiray uu xambaari jiray jaceelka noocaas ah oo maxaa sheegay taabashada ah shumiska ah waa wax xalaal ah waa la isqabaa dadkan dad ilaahay isku xalaal iskaga dhiga waay waxaan ka hadlayna dad banaanka ma aha dad aan isqabin ma aha taas waa xaraan dadka isqabaan ka hadlayna haddii jaceelka noocaas uu ka maqan yahay waa is ogtihiin dadka inta la qabo waxa loo baahan yahay open inay ahaatid ninkaada waxana u gudbin kartid fariinta inta aan sheegayo in kamid inta ku dirtid xataa na u sheegi kartaa loo baahan yahay jaceelka nooca kale waxa waaye partial love ka waxa waaye jaceelka dhaxmaro bahalka sheegay ninkii naagtiis qabo haday tahay galmo labada qof binaadamka ilaahay waxa jira xalaal iska dhigay way isku galmoonayaan ilmaha meesha laga abuural rabaa waxyaalahaas oo dhan taas oo kale ma aha in la isku tago waxa jira sida ninka ku helo ma aha waxa loo baahan yahay xuduud ay leedahay naagtu waxay leedahay rabid ninkana rabid uu leeyahay saa ogsoonahay naagta rabideeda ninka waxa la yiri rabidiisa soo hormarto tan naagta dambayso taas waxay keentaa dumarka inay maxaa jira ku abuurto depression murugo
ما sheegan karto ma dhigi karto aniga waxaan rajay sheeg rabideeda taada soo hormarto tiyada dambayso waxa ka dambeeya 15 daqiiqo ii fuli ma dhigi karaa way nagu adag tahay haddana xalaal hadda tahay ka waraa wixii xalaashan ka cabsan waxa soo kale maxaa lagu sameeyaa ya rabidiisa markay soo hormarto waxa loo baahan yahay ninkii inuu fahmo awish inay barnaamijkan nimankan ay maanta naga soo meeshan joogi lahaayeen fahmi lahaayeen rabideeda waxa waaye waxay ka dambaysaa la yiri 30 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo inay gaarto rabideeda haddii ay gaari wayso waxa imaanayo depression murugo yaa kula dhacaysa murugada ilmihii yaa maxarjisha dhibka keensaday ninkii yaa dhibkii maxarjisha lagu la dhacay ilmihii koob jabis cuniga hala dilo ay waa taagantahay waxaas dhan maxay ka imaatay haddii jaceelka noocaas ee buuxo ee heli lahayd waxa laga yaabaa ilmaheeda inay naxariis u dareemi lahayd waxa laga yaabaa ilmihii maxarjisha dilka ay ku dilayso iyo xanaaq ay kula dhacayso inaysan kula dhici lahayn love ka noocaas nagu jira recreational love waxa waaye ina activities la sameeyo in la isla ordo iyadoo la maxarjisha meel oo privacy ah guriga kamid ah ama in maxarjisha ninkii naas qabo ay isla qubaystaan swimming poolka nabiga sallallahu alayhi wasallam usmaan jiray haduu nabiga waxyaalaha nabiga sallallahu alayhi wasallam usmaan jiray haday wax xun ay tahay taariikhda lagu madari lahayn axaadiista lagu madari lahayn maxaa loogu daray in anaga ku cibra qaadano aan dabaqno waxa loo baahan yahay anaga maxaa nabiga wuxuu sameyn jiray aasmaysiina loo baahan yahay maxaa jiray maybe inay jiraan waa laga yaabaa laakiin inaag Soomaali ah wada cayaarayo ordaayo qaliil ma jiraan way yarihiin haday jiraan maxaa jiray waa dad yar farkuturisa ma jaceelka noocaas ah xiriirka labada qof ninka naagta ka dhaxayso wuu dhisaa wuu adkeeyaa waxa jaceelka noocaas ah waay love aan ka gudubno naagta maxay kala jeceshahay talk hadalka waa hadal badan tihiin hadalka waxay jecel yihiin waxay soo dareemaan inay maxaa jiray gudbiyaan ma sugi kartaan haddii jidka ku saarto waxay jeceshahay inay sheegto haddii maxaa jiray laba shimbir isdagaalaysa aragto inay tiraahdo laba shimbir ha isdagaalay micnihi ma waxyaalahaas maxaa jiray camal inay dhahaan ma aha laakiin tooga waxa waay waxay jecel yihiin hadal badi waxay jecel yihiin waxyaalahooda maxaa jiray inay ka hadlaan dhibkooda waxay jecel yihiin inay maxaa jiray ay hadlaan ay rabaan naagaha dumarka nimanka walaalaheena Ilaahay u naxariisto waxyaalahaas kale ayaga maxaa jiray dhib ay ku tahay hadal badan ma rabaan waxay u badan yihiin action inay wax ficil sameeyaan hadalka ayaga maxaa waaye uu ku adag yahay inayna waxa loo baahan yahay hadalkiina daaragteen inuu badan yahay xad wax kasta xad ay leeyihiin cadaanka maxay dhahaan wax kasta hadii xad kasta dhaafo muxuu noqdaa poison toxic wuxuu noqdaa sun xadkina ka baxdin lama baana for example ninkaada wuu xanuunsanaa maanta uu shaqeynayay gurigu imaaday hadal muu baahan yahay wuxuu baahan yahay baxnaani wuxuu baahan yahay in la kolkoliyo wuxuu baahan yahay wuxuu rabo in la siiyo hadaa aad tiraahdo ka war maanta dhan waa iga maqnaan wixii maanta aan arkay iyo wixii aan dareemay iyo wixii aan uriyay aan ku sheegay ka waran dhibay leedahay waxa loo baahan yahay wax kasta in la balance gareeyo waxyaalaha balance loo baahan yahay inagana waxa loo baahan yahay waxyaalaha jeceshiin in la balance gareyn kartiin waxay kala jeceshahay shoes kaba waay kabaha micnaheedu kama aha kaba kalina jeceshahay dumarku waxay jecel yihiin dharka camal shoppingka shoes waxa laga soo qaato shoppingka dharka ay jecel yihiin no wonder loo dhaho naagaha nimanka maxay u gursadaan lacag ya qof waxay rabtaa qamaarkeeda kabii u ag inay hesho nin faqiira ma laga helaa that's why naagaha Soomaalida maxaa jiray naagaha kale adduun weynaha ay ugu ordaan nimanka lacagta leh hadda maxaa maqlay sheeko Hollywood ka meeshan hadda filmada lagu dhiga cadaanka waxa helaysaa nin faal xumo badan inaagti qurux badan way israaceen way isgursadeen waxa lagu leeyahay iska helnay waxa laga yaabaa inay waxay rabtay waxay jeclaad inuu siiyo uu fulfil gareeyay laakiin nimanka ayaga waxa laga yaabaa waxyaalaha qofka ay ku raacay waxyaalaha nooc kale ka duwan inay noqoto sax shoes ka kaas ku imaanaya jaceelka lacagta in la jecel yahay dharka iyo waxa siiyo waxa ku soo haray they also love security amni inay amni helaan meel amni inay ku nool yihiin cause dumarka waxa waay sentimental waay waxyaalaha oo maxaa shucuurtooda dhaawac u geysanayo ma adkaysan karaan waxay u baahan yihiin inay amni helaan amnigaas dumarku way jecel yihiin ragga inay ogaadaan loo baahan yahay ragga ma aha inay maxaa sheegay markay arkaan xaaskooda yurka cararayso inay dhahaan waxa fuliida maxaa waay no it's in them fulinimada iyo amnigaas inay helaan waa wax ku jira ayaga waxay kala jecel yihiin also babies ma jeceshiin you know it's natural dumarka xataa maxaa la jiray mid aan dhalin oo shukaansi xataa aan gaarin waxa laga yaabaa inay cunug yarkay ay aragto diriskeeda ay soo qaado xambaarto kolkoliso chocolate usoo gudo wax siisiiso qoys waxa wax ku jira waa ilmiye jecel yihiin taas also respect in la xishmeeyo xishmada ma jeceshiin dadka ma xishmeeyeen iniga you know meesha respect waxa waa like waa wax adag waay respect darteed inaad ka heshid ninkaada waxa waa inaad isaga xishmaysid waay
xishmada marka adiga xishmaysid waa heli kartaa wax kasta oo adiga adduunyada lagu hada imaanaya uu ku keenay adaa xishmaysid hadaa rabtid in xishmo ka heshid waa inaad xishmaysaa ila xishmada adiga bilaawataa waa saa u heshid xishmo okay dumarka halkaas uga baxnay ragii u maarnay ma aragtaan nimanka you see aan ka bilaabo food food cuntada aan ka bilaabo you know it's like waa maxaa jirta Soomaalida halta dumarka Soomaalida nimanka Soomaalida badanaa waxay ka helaan horta waa waxay ku rooyeen waxa Soomaalida ka heshiin waxa waaye ay ka helaan cuntadii cuntada way ka helaan cause waxa arkaysa guriga Soomaalida waxa la kariyo dhari weyn hilib weyn inta badan yaa la siiyaa aabaha ya waxa laga yaabaa hooyada miskiinta ah waxa laga yaabaa iyadoo umul ah inay iska qadiso waxa nafaqadaas jirkeeda galahay ay siiso loo dhigo aabihi ilmihi xataa sometimes ma cunaa waxa leeyahay garabka aabaale oo food marka food ka halkaas hadii ragga Soomaalida waxaan dhihi karaa 90% way ka helaan rabidooda cuntada ay jecel yihiin dadka dumarka Soomaalida way ka helaan waxa ku soo haray biya waxa waaye hadda dadkan Soomaalida dadaan biya badan oo khamro iyo cabaan uma badna laakiin se waxa waaye waqtigood waxay ku dhumiyaan let's say qaarkood waxay cunaan qaad qaarkood waxay cunaan sigaar qaarkood waxay aadaan fadhi ku dirayaasha nimankiina markay fadhi ku durka aadaan hawada gaalinina oo waxay rabaan rabidooda waa hada qof la yiraahdo gabar waxa rabtid ka tanaazul ma yeelay dhacaysa dagaal waxa imaanaya conflict waxa loo baahay laakiin sina nimankiina Allah heshiina tiraadiin fadhi ku durkada ku ogolahay laakiin 2 saacad ku ogolahay ma 3 saacadood you set your own tradition dhaqankiina waa inaad mistin gooni ah oo iyaga gooni ah صح waxay jecel yihiin saa u aragtiin sex 3 meel ka haysta brainkooda uu kaga jira waa 3 meelood ma aragtaan waa koow laba 3 waxa sex waxa waaye waa galmada ragga waxa la sheegay dumarka waxa la yiraahdaa rabidda halka dhinacaas ah way kaga badan yihiin meeshaan waxa ka imaato conflict dagaal badan ka imaado lisma fahmaayo ninkii waxaan uu rabaa wax ilaahay ku abuuray qofta dumarka maxay rabtaa in la fadhiisto la kolkoolin iyo qof maxaa jirta xanuunsan miskeenaya oo wax rabo no isma keenaysa meesha maxaa ka baxaayo kolkoolintii cause qofkan is hot yani is like hormones kiisa maxaa jirta awadana ka cinayaan hadii meesha maxaa jirta oo baalkii qofta dumarka ay tiraahdo markuu ninka rag wuxuu u baahnaa ay tiraahdo ma helaysid saan ismay list dheer ay u keento ka waran ma la fahmaya waxa just in harmony waxa lagu noolaan karaa labada qof yani ugu noolaan karaan listiga soo qoro listigiisa soo qorto kayga ii fuli kaada ku fulina waa isku wadeena صح okay TV with football football ko jecelihiin banoniga yani way ku waleeyeen aad ay ugu waleeyeen qaar hada waxa arkaysa maxaa sometimes hatta iman waxa arkaa ayagoo guriga TV yaalo oo maxaa jirta rabaan inay banoni daawadaan gurigii maxaa jirta ma rabaan waxay aadayaan meelaha TV-da lagu daawado ay ku badan yihiin cause farxadooda iyo maxaa jirta waxay ka helaan energy waxa waaye inay isku meel wax ku wada fiirsadaan ee wada qeylqeyliyaan you see ay helaan bahalka shaq maxaa lahaa that kind of ay helaan so hadii football ay tahay maxaa jirta wax uu jecel yahay aad ogtahay ninkaada inuu ku waalan yahay no ha kirtisaas gareen ha cambaareen wax ku jiro maskaxdiisa jecel yahay waa bini aadan waaye wax uu jeclaan karaa waxa sameyn kartiin laakiin hadii aad aragtid inuu football ka shaq waqti u sameeyaa haduu waqtiga ka bato waxa sameeysaa halla if you can beat them join them hada kareen weys maxaa sameeyaa waa lagu darsamaa ma intuu meel kale ka aadi lahaa oo ka carar lahaa qeylada aysid hada imaatay banooni ay ugu fadhiistay Manchester ay fiirsanaysa inta dhiileed soo dhaweey shaax u keen biyo u keen la fiirso maxaa dhiba ku jiro intuu meel kale ka aadi lahaa oo marnada iska aadi lahaa maxaa kaga fiicin gurigaada banooni kugu fiirsado aadana ala fiirsatid صح waxa la baahanaa dareena ayagana waxay rab yihiin waxay jecel yihiin ogaana loo baahan yahay mid kale TV-ga inay fiirsadaan ee programme ay ka fiirsadaan way jecel yihiin also taasoo kale waxa loo baahan yahay in ogaano balance gareeno jaceelka maskaxda waxay kala duwan yihiin halkaas ku soo koobaya then at the same time maxaa la mid aan rabaa inaan kala cadeeyo waa aragteen hadda maxaa la sheeg dadkan hadda oo maxaa la humanistic whatever feminist waxay dhahaan dadka u dagaaltama xuquuqda dumarka waxay dhahaan what a man can do a woman can do waxay naag sameyn karto nin uu sameyn karaa taasoo kale waxa loo baahan yahay inaad ka faajignaasdiin cause qofkan ragga ah ilaahay wuxuu u abuuray si dumarka waxa loo abuuray si gooni ah haddaan ka war wax kasto ninka uu sameynayo because what a man can do a woman can do waa sameynana ka waran
lama baan waxa loo baahan yahay ogaatiin rag inay ilaahay si gooni u sameeyay nooca dumarkan ilaahay muxuu sameeyay noocaas difference u dhaxeeya ma micnaheeda inay superior ay yihiin ay niga sareeyaan صح بس waxa la rabaa inaad differences ka kala ogaatiin fahantiin mid kale maxaa jira sheekay waa ogtihiin hadda hadii aan dhaho ka waran naag pilot ah ma jirtaa badana wayri when I say maxaa jira ma jirtaa I'm like I'm targeting majority waxay u badan yihiin naag oo diyaarad wadayso way yar yihiin haday yar yihiin waxa waaye fikirka laga dhacsiiyay mise passion ka raacay dhahayn wixii ninka sameyn kara qofka bini'aadamka yani passion kiisa uu raaci karaa laakiin majority ka hadlaynaa waxa jirta rag ay ku fiican yihiin dumarkiisa ku fiicnaan rag waxa jirta wixii dumarka uga fiican yihiin dumarkana rag ay ku xun yihiin waxa loo baahan in la wada fahmo fiilkooda in loo daayo way ku fiican yihiin aan lagu la dhihin maxaa sheeg wuxuu nin sameyn kara dumarkana sameyn kara shaatiga intii la qabsado ma aha waxa ilaahay abuuro waay ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay ar-rijaalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum nimanka maxay kaga horeeyaan ragga wuxuu ilaahay ku fadilay dalik fadlullahi yutihi man yasha wa fadli ilaahay cidda doono uu siiyaa waxay naga fiicanaa jirto anagana waxa uga fiicanaa jirto waxaan uga fiicanaa for example communication ka uga fiicanaa wada xiriirka hadalka waxa waaye qofta maxaa sheegaa dibkeeda inay sheegan karto haday xanaaqsantahay inay wax xanaaqsanahay that kind of communication nimanka ayaga ma laha waxaas waxay u arkaan waxaas weakness ay u arkaan nin dhahay ma aragtay sheegaa aniga waxaan dareemayaa oo madaxa xanuunay no madaxa aan isticmaalin kind of what can I use nimanka isticmaalin ee dumarka aad u jecel yihiin inahan xanaaqa camal hadda markay caring net emotions shucuurahooda wixii ku soo dhaco haday tahay jaceyl haday tahay xanaaq ayadii maxaa jira waxa laga yaabaa inay sheegto tiraahdo saana ahay haddii xataa ay afka ka sheegaynin waxa laga yaabaa wax ficil waxay rabto ficil muujinayo inay samayso haddii xanaaqsantahay kaba soo qaad Soomaalida badan uma badnin inay qofta xaaska ninkeeda ku tiraahdo waxaan waa dhibsanayaa waa iga xanaajiyaa iga dhaaf way yartahay dumarka sameeyanayo soo communication u fiican yahay way yari laakiin maxay sameeyaan ficilkay sameeyaan koobkay jabiyaan ha cunto maalin lama karinayo sax maxay tusinaysaa xanaaqeeda ay ku muujinaysaa raggi sidoo kale ma aha waxa loo baahan yahay inaan saas u fahanno waxa loo baahan yahay inaan dhisno basiga guriga inaan dhisno loo baahan yahay dhaqanka maxaa jira Soomaalida oo dhahayo wixii xaq ka xishooda gadaal iska dhiga waxa anaga dadka ugu horeynaa u nahay meel aan u gaari weyn waxa waaye dhaqankii wadaha u haysanaa kor waxaan ka nahay dad islaam ah jilbaabadu waa qabnaa qamiisadu waa qabnaa laakiin ma internalize garana diinteena ma ku dhaqanno waxa loo baahan yahay waxaasna gooni iska dhigno diinteena waxa loo baahan yahay inaan ku dhaqaaqno islaam marka adeys islaam ahay I'm proud of it waan ku farxaa islaam laakiin dadka hor islaamka ku dhaqmin ka waran qofta dumarka waxa looga baahan yahay gurigeeda qof hagaajin isma xaqiiq kala hagaajinay hadhow wixii warshada soo saaraysa waxa waaye dad kale wixii ku korinaysa waa wadnaheeda sidoo kale sidii dhaqankii ahaa waxa loo baahan yahay dhaqankiina gooni iska dhigno wixii diinteena ay leedahay aan soo hormarino insha Allah wana maadsantiin wixii su'aal qabo qofka hadda balwad leeyahay aan rabin si uga goynay miskiga deynay kay marka waxaan leeyahay just wixii qofku rabo u yeel ma micnaheedu maxaa jira sheekeen waxa rabnaa anaga waxa daraadina waxa waa solution waa xalka muxuu ku maan kara waxa loo baahan yahay in la isku tanaasulo adiga waxa rabtaa baahiya leedahay waxa rabtaa kaba in lagu soo gado waxa rabtaa maxaa jira sheekeen gaari lagu soo gado wixii dhan uu ku yeelaya sax uu ku tanaasulo waxa laga yaabaa lacagtaas inuu saraali ka ahayn laakiin uu ku siiyay kaba saa uga gadatid uu ku siiyay saa maxaa jira sheekeen waxa ajacasha rabidaada uu ku buuxiyay adina waxa loo baahan yahay u tanaasusho waxyaalaha qaarkiis dartiis ugu tanaasushid koos waxa tahay dad wada noolaatihiin hadii isku tanaasul iyo qof kale wuxuu rabaa la farxad gelinayn ma iimaanay xalka wuxuu ku jiraa in la isku tanaasulo waxaas aad nacabta waxa laga yaabaa nacab yihiin nacab korta waxa waa maskaxda waxa la yiri saa wax u gelisto programka ku shubtid waay nacabkii jecelka anaa ku shubi karna hadaa aad tiraado waxaan aniga anoo jecleen laakiin ninkii waa qofka adduunyada kugu xaq badan waay waxa la nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ninka naagta ninkeeda muxuu yahay jannada iyo naarteeda hadaa ninkaada awraale u noqotid wax kasta urba usmisid jannada ku tagaysaa haduu wuxuu rabin ama xariir sheeg ku noqoto caasine maxaa ku tagaysaa naarta waxyaalaha asmanis waxa waaye you should be proud of it waa ina kor madaxda kor u qaadaa waa ina tiraahdaa waxaan anoo xariir sheeg naaga kala ma sameeyaan an la kuwa sameeyay ninkayga u tanaasule alo baahan tanaasulkaas waay solution kaas ku jira in isku tanaasulo ninkaaga haduu jaad cuno ama qamra caba bad u leeyahay ku soo boodmaysid hal mar ma fahamtay jaada cuntay saanaad yeeshay xagaa tuu bis laga ma rabo xal baa raadinaysaa adoo raali wixii ooga ah waa dhakhtar la kaashanaysaa
waxaad leedahay waxaan danku ma aha caafimaadka ku xun ama dhibkaana jira habkee baan uga hortagi karnaa adoo deganaasho muujinaya iban hadduu is adkeeyo maalmaha hore tartiib adoo haddaa isdejisid tartiib wax kasta oo goyn kartaa laakiin haddaa qayliso maalin kasta waa xaaladda la soo xumaanaysa qofkaan balwadda ku ordaayan waa qof jiran maskaxa taasgeli adi horta balwadda la iskama aado qofka waxbaa ku kalifay waxbuu ku cararaya ninka balwadda iskama cunaayo balwadda hadduu sigaari cab waxbuu kusoo xuba soo maray si loo soo koriyo mataqaanid dhib ku soo dhacay warkama haysid inaad tiraahdo war balwadda dhibta maxaa kugu dhacay adi maxaa balwadda u yeelata inaad ogaatid dhibaatada u keentay qof kastoo balwadda iskama rabo qof rabo miyaa jira inuu halaabo qof rabo male dhibaata u geysata dadkii oo halaabay dhibaata ku dhacday dhibaatada inaad ogaato kadib tartiib wixii aad dhakhtar la kaashto aad xalisaan laakiin aad ku soo boodin hal mar ama qaylo shidin maalin kasta iyo buuq saasaa lagaa rabaa bismillaah nasteexa aad baa u mahadsan tahay maasha allah anagoo gabdho yaryar oo weli guursan inaan helno barnaamijyo saan oo kale ah waa farxad sababtoo ay tahay haddeeraan timetable sii samaysanaynaa qofkan waxyaaba u jecel oo kale maanta ogaan kartaa soo maahan intaadan guri isla gaarinba marka ma u maleynayo in sidii waagi hore soomaalida loo dhihi jiray jaahil bay ahaayeen iyo guryaha burburkooda badnaa inuu hadda u dhacayo sababtoo ah dhalinyarada hadda soo kacayso dhan way fahmayaan wixii labadii sawirna waxaa iiga muuqatay in ay yar tahay nimanka waxyaabaha guryaha ka jiro oo kale inay ku yartahay inay ka fakaraan sida ilmihii oo kale inaysan ugu jirin maskaxda inay ka fakaraan maamadii inay ilmihii ku xanuunsan yihiin ay ka fakaraysa in badan qof xanuunsan uu jiro aan lala kargaraynayn sidaa darteed uu guriga ku burburi karo si fudud marka waxaan rabaa mar kale inaan ku dhaho waa mahadsan tahay si aan usii ogaano sawir baa noo keentay waxyaabaha badan oo ay kasii fakaraan annagana inaan ka maskax badanahay waxaa jira rag qaar oo wax walba oo u suubinaysid guriga markaa joogtid laakiin uusan kuu fahmaynin oo yacni adiga haddaa dadka weydiisid ay ku dhahayaan u sawir ninkaaga waayo u sawir ku dhahayo waa jiro marka haddii aa wax walba u suubisidna asagana uusan ku fahmaynin su-aalahaas way weyn yihiin maskaxda way ka weyn yihiin dhakhtarada iga caawinayso midda koowaad just waxa kugu dari karaa waxaa waaye waxaad tiri wax kasta waa u samaysaa waa u tanaasushaa asagii waxyaalaha arabta kama heshid dhibka koowaad wuxuu noqon karaa in just ishaga u ogeyn waxaa rabtid ma u sheegtaa nimankaan mogtay cilmi qaybka ma yaqaanaan qalbigaada waxa ku jiro maskaxdaada waxa ku jiro yacni casharka ku xiganayo yani fardusaan nolosha noogu sheegi doonto waxaa laga yaabaa waxaa rabtid inuu ogeyn u sheeg ceebta xig maxay ku jirtaa ninka haddaa ku tirahdid waxaasaa rabaa ceeb ma ku jirto waxaa jira rag qaar oo ishaag adiga uu ku qabo naaga kale tawayga ay u raadsanayaan maxay tahay dadka iska daa guriga waxa ka dhexeeya waxaa waaye adiga guurka wax ka dhexeeya waxa waaye adiga iyo ninkaada waaye dadka maxaa meesha soo dhexgeliyey waxaa loo baahan yahay tanaasulka wax isku tanaasuleysiin asaga inuu ku ogeeyo waxaa laga yaabaa waxyaalaha tanaasuleysid inuuba ogeynba maskaxdaas waxa laga yaabaa inay ogeyn wax iska qarsoontaa loo baahan yahay waa u sheegi kartaa waa wada fadhiisan kartiin midda kale oo baalka sheega guurka waxaa u daayay dhakhtarada ninkaaga marka aad wax fiican u suubiso yaa intaa soo kariso maanta cunno fiican oo heer sare soo ag dhigtay guriga ha hagaajisay waligaa ma u sheegtay ma tiri maanta aan dadaalaan suubiye ma tiri waligaa saw marka qalbigaaga ma ku jiraa tii hore intan maxay kula duwan yihiin waa inaa adiga isu sharaxdaa aniga maanta saanaa yeelo waxaanaa suubiye waxaan fiicanaa suubiye yaa u suubiye adaan kuu suubiye ani cid kale uma suubin ma fahamtay haddaad wax fahamsiiso okay laakiin haddaan waxba fahamsiinin waxba ma garanaayo soo jees adaa lagula hadlaa gabadhi tan ma ahayd midda labaad waxaa waaye maanta faa'iidaysatay soo maaha wuxuu raba waad fahamtay soo maaha ya wuxuu raba haddaad maanta fahamtay waad ka faa'iidaysan kartaa sababta waxaa laga yaabaa waxyaala kale aa ku mashquulsaneed laakiin guriga markuu soo galo baahidiisa maba ka warqabtidbo ya ma ogidba baahidiisa laakiin haddaad baahidiisa og tahay maanta waad ogaatay waxaa laga yaabaa inuu ogaado maanta darsiga ooga sheeka meelaan tagaad leedahay baahida raggu waa intaas baahida dumarku waa intaas waa isfahmaysaan midaan waxaa kuu soo hartay guurka badan dhaqana u leenahay annaga kowdha midda ugu badana waxaa waaye qancis la'aan ma aad qancinaysid ma fahamtay haddaad qanciso ninkaaga oo kugu qanacsan yahay okay laakiin haddii aan isku qanacsanayn dhibkeeda leedahay adiga caloosha waxbaa kugu jira isaga caloosha waxbaa ugu jira haddaan muran imaado reerka qaraabadaa soo boodaayo dhexdiinaba waa lagu jiraa mar kasta saana yeeshe kanay suubisay adna waxaa lagu leeyahay kanuu suubiyey laakiin idinka wada hadla ma fahamtay inkastoo calafna iska jiro qofka haddii ilaah u qor dadna dhaqanayba u tahay dadna waxayba qabaan sex addiction wax la dhaho rag qaaraba qababo aan fariisan karinin bo inaan naakuranin saas ma marka maskaxda ku hay taas adiga qaar waa jiro qaar maxaan ku irahdaa waxaa waaye maxaan ku irahdaa ii sheeg qancis la'aan Dr. Maimuna waxaan
su-aal ka weydiinaya gabar habeen dhaweed xaafadeen isku dishay la dhahay gabadhaas oo la dhahay in badan ninkeeda ay tiri waqti fiid horaa imow guriga imow iyadoo shalay maalinkaas ay kasoo qaadanaysaa luunka go' kasoo qaadatay oo firaash ah imaadayna xaafadeeda casha ay karisay diyaarisay rag badan iyo asaga isla cashayn jireen ay tiri imow guriga biliis caawo inaa fiid hore imaado waa guriga oo waa ku xugmantahay u dhahay ma imaanayo biisi ah 4 saac ka hor ma soo socdo maxaa dhihi jiray shaydaana qaaday sunay hoos u doonatay dukaan hoostooda 2 dhalo suna weyna caftay iyadoo alla hooyo dhaysa dadka dariska ku sab maxaa fiid hore irid u xirtay waan imanayaa iska kay cafiya ilbaabkii markii dambe furo isbeer loo raadiyay caanaha loo keenay ilkii isdhaafsatay way cabi weysa dhoonkay markii la geeyay naftana ka baxday marka ninkiin wuxuu ku andacoonayaa anaa u sababa haddii aan u imaalahaa intaan dhan maysa dhacday maxaa lagu qiimeyn karaa qofkaas oo kale iyadaa jirneed markeedii hore ma fahamtay inay depression qabtay u badan tahay cid ka warqabinin yaraanteedii ama weynka depression uu kusoo dhacay cid og male waxaan qabnay cid og male naftu baa seeka jirta ma waxaan qabno lagama warqabo ninkeeduna aqoon saas uma lahayn hadduu og yahay gabadha inay depression qabto ama ay xanuun maskaxeed qabto hadalladaas ma u dhaxeen mana ka soo daaheen ee aqoon dara asaga naftiisu ku dhacday ma fahamtay laakiin hadduu ogaan lahaa dhibaatada ay qabto uu ka hadli lahaa waa marka naagu uur bay leeyihiin markay uurka leedahay gabadha uur leedahay soo ma uur bay leedahay weliba uurka ma weynaa mise waa yaraa ma garan kara anigu way ka jilci uu yaraa soo maaha xilliga uurku yar yahay ee mar kastaba naagu uurka ay leeyihiin dush waa ku yartaa dabeecad waa ku yartaa sababtoo jirka isbedel badan baa ku dhacaya marka maxaa la rabaa ragga Soomaalidu naagta markay uurka leedahay in laga taxadaro yaan la furin bay diintu naagta markay uurka leedahay ma fahamtay yaan dib loo geysanin laakiin marka aad dib u geysano maca dumar anaka isu geysano ragaba intaan la gaarinin marka taas ay keenaysa iyadoo maskaxdeeda caadi ahaan iyadoo walaca iyadoo dhibban oo uur leh iyadoo xanuun u qarsoon yahay saacadin waa dhamaatay cashirka maanta ka hadlayo waa soo yareynaa wuxuu ku xariirsan yahay wuxuu la socdaa kii nasteex ee ka hadashay hadda waxaa la dhahaa 2 qof raba inay igala qayb qaadato gabar wali guursanin iyo waxaa rabaa maamo ama gabar oo guursatay 2 qof bas inay istaagaan rabaa 2 su'aal bas aan weydiinaa qofkiiba hal su'aal cashirka saa u bilowno hal mar istaag leh qof guursanin iyo qof guursadaa rabaa 2 adiga bas ma lagu guursaday اوكي مايا نصرة اوكي يا لا غورسدي يا غورسنين نو ادينا ولا غورسدي اوكي سؤالك كواد waxa weydiinaya naciimo waxaan rabaa naciimo in aad noo sheegtid waxyaalaha aad ka filanaysid guurkaada oo mustaqbalka waxaan ka filanaa awlan mustaqbal wanaagsan qof ubadka aan dhalin doono ila daadahayn karo nadiif ah macnaha anigana aan sawjkiisa xalaal ah u ahay si cadaaladna oo la shaqeeyo su'aasha waxa ku weydiin rabo inta aad guursanin ka hor waxyaalaha filanaysa ma jiraan haddii jiraan maxay yihiin guurkaada ka filanaysa ama ka rajaynaysa wax badan filanaya horta yani ana ahaan waxaan jeclaan jiray intaan guursanin ka hor qofka is guursano in asla noolaano maalin is moogaanin ma dhicin marka qofka hadda aan isqabno ma joogo misla noolin labadeena marmar way dhacdaa in is aragno laakiin aan waxa jeclaan lahaa habeen maalin waqti kasta isku meelna joogno ما شاء الله thank you ما هتسنتي هلا وضع السؤال أنا إن إيجي جواب صفر عن إيجي جواب تمام هتسنتين أوكي 10 كأنه ما أنتوا حواي expectation على ده ما أنتوا أنا وحرادينا إيري أف صومالي أو جليو بوسكاس وحنا واي في الشو وحافل نيست وفل بق مركوسو كرايو أنتوا حريري يلا نكور وحوربا وحياله وفي الشوج أجران يوحياله وربنا نلشيس إن إيوغا uga suurtoodo ama uu ka helo qofka kale oo noloshiisa soo galay hadda qof walba bini'aadan wuxuu leeyahay dad badan oo la xiriiro waxa jira hooyo iyo waalid iyo ilmo waxa jira dad ganacsi idinka dhaxeeyo waxa jira dad ay guursateen qof 2 qof oo is qabto hadda marka waxa xooga saaraya dadka is qaba ama isku meel joogan
xiriirkooda iyo waxyaalaha ay rajaynayaan qof walbo rajada uu qofka kale ka leeyahay sida ay u dhaawici karto xiriirkooda horta rajaynta iyo filashada qofka kale waxa ka filanaysid waxa waaye qof walba wax uu bini aadan oo maskaxiis ku programsan laakiin waxa jiraan waxyaabo way kala duwan yihiin waxay qabaan noocyo kala duwan nooca koowaad waxa waaye qofka filashadiis waxyaalaha uu filanayo waxay ku tiirsan tahay gurigiisii guriga uu ka imaaday iyo dhaqamadii uu ku soo koray waxay kaloo ku tiirsan tahay xiriiradii uu hadda ka hor soo yeeshay xiriirkii uu waalidkiis la lahaa meelihii uu ku soo koray iskoolkii dadka saaxiibada ay ku tiirsan tahay tan kale waxa waaye waxyaalihii uu la soo kulmay hadda ka hor iyo qofka inuu rajeeyo qofka kale inuu farxadii meeshii booskii ka banaaneed farxadii inuu u buuxiyo marka rajaynta waa noocyaashaas waxyaalihii kugu soo dhacay hadda ka hor qof walba wuxuu leeyahay pass uu leeyahay iyo waxyaalo uu soo maray waxyaalihii kugu soo dhacay ka hor waxa laga yaabaa inay saameyn weyn ku yeeshaan waxyaalaha aad filanaysid waxa laga yaabaa weligaa in meel farxad ka jirto ama dhib leh ku jirto weligaa marka xiriir yeelanaysid filashadaadu waxay tahay waxa filanaysid waxa waaye in farxad aad heshid farxadii haddii meeshaas ka heli weysid xiriirku maxaa ku dhacayo uu baaba'aya marka qof walba oo xiriir galo waxaa la rabaa ama xiriir ku jiro waxaa la rabaa in uu ogaado waxyaalaha uu filanayo sida uu u sheegi lahaa hadday wax macquul yihiin iyo hadday wax macquul gal ahayn waxaa jiraan waxyaalo rajaynaysid oo macquul gal ahayn for example hadda gabar hadday nin isguursadaan ay dhahdo intaas guri idis oo bungalow ama mansion iyo oo incomekiisa ninka uu saamaxaynin inuu u dhiso taasoo kale waxaa la dhahaa filasho oo macquul gal ahayn macquul ma galaysa aqliga marka hadaa maanta soo baxo ka waran aad dhaho gurigaani toole idis qasab idis marka isguursaneen waxay dhahay guri mansion bungalow ku dhisaya xataa haduu qofkii been ka sheegay uu u dhisi waa xiriirka waxa ku dhacay inuu baaba'o waxa ugu weyn number 1 oo dumiyo guri walba badana waxa waaye qofkii oo wuxuu filanay heli waaye qofka waxa ka filanaysan qofka inuu muuna ii sameeynin marka ani maba la joogi kari waa inaa ka tagaa meeshaan hadda waa fahanteen filashada macnaheeda iyo si u dumin karto guryaha marka hadda waxa u soo laabanaa sidii looga hortagi lahaa ama saa ku badbaadin lahayd xiriirkaadii midda koowaad waxa waaye stepka koowaad number 1 waxaa la rabaa labada qof in ay ogaadaan in uu problem jiro inuu jiro labada qof in ay ogolaadaan ayna aqbalaan tan labaad waxa waaye in uu qof walba oo xiriirkaas ku jiro ogol yahay waqtigiisa in uu ku dhumiyo ama uu siiyo waqtigiisa si uu u badbaadin lahaa xiriirkaas oo gees ka burbursan ama kulligiisba inuu baaba'san laga yaabo ama xiriirka labada qof in ay murunsan yihiin ay rafaadsan yihiin marka suu u soo nooleyn lahaa ama uu nafaqeyn lahaa ama xiriir adag uga dhigi lahaa waxa la rabaa labada qofba in ay diyaar u yihiin in ay waqtigooda ku dhumiyaan diyaar ay u soo jeestaan maanta waxa u soo jeeda in aan xalliyo ama xal keeno tan kale waxa waaye qof walba inuu xil isaaro oo xiriirkaas ku jiro labada qof mid walba inuu xil iska saaro because waxa la dhahay hadaadan ahayn halka hadaadan ka qayb qaadanin macnaheedu waxa waaye adiga waa qofka problemka wado marka waxa la rabaa in aa xil isaartid aad aniga dartay waaye waxaan isaan u dhaceen ama waxa uu xiriirkayga u baaba'san yahay waa aniga dartay marka qof walba labada qof haday kala qaataan xilkaas ee isaaraan waxa laga yaabaa inuu solution imaado tan kale waxa waaye qof walba ficilka uu ku dhaqmo waa inuu ogaadaa in ay leedahay wax ka soo baxo consequence inuu leeyahay qof walba ficilkiisa marka asaas u wada fadhiisatiin oo kale waxa laga yaabaa dhismada aad dhisaysiin xiriirkiina ama aan nafta soo gelinaysiin inay tahay in labada qof ay isla fadhiistaan ayna sheekaystaan ay ka hadlaan dhibkoodii marka ha u arkin waxaas in ay wax macno daro tahay dhibkan haysto badanaa guryaha badanaa dadka ka haysto waxaa waaye wada hadalkii waxaa laga dhigaa wax macno lahayn haweenka kale markay dhahaan aan hadalno let's communicate nimanka badanaa waxay dhahaan maxaa ka hadlaynaa laba qof oo mar hore isguursataan hadda maxaa ka hadlaynaa tan kale waxaa waaye dhageyso adigana ha lagu maqlo labada qof waxaa waaye qof inay is dhageystaan ayna ismaqlaan ayna isla hadlaan
adigu waxa laga rabaa marka dhageysanaysid waxa ha u dhageysanin iska dhageyso wuxuu wadaa complain qofkan sida adoo ka cararaysa amal wixiisa ha u dhageysanin waxa sameynaysa active listening wax la dhaho active listening kaas waxa waaye in wixii uu qofka sheegay fahantid badana waxaan dilay waxa waaye wixii ma fahmo waxa rabnaa dhageyna ku shubanaa maqalnaa for example hada aan ka soo qaata cali iyo caasho way isqabaan marka caasho waxay ku dhahday cali mar walba oo suuqa tagno iga soo tagtida meelaha iska wareegtid waa ka xumaada cali wuxuu ugu jawaabay marka suuqa inaa ku raac ma rabtid marka iyadana waxay ugu jawaabaysaa maya suuqa inaa ii raacdid ma rabi ma ahan waxaan rabaa markaa suuqa joogno in attentionkaada isiisid aad iska wareegin marka ka bacdi communication active communication kaasaa la dhahaa in qofkii fiirisid horta marka hore hadaa rabtid inaa qofku wuxuu sheegaya fahantid fiiri qofkii meelo kale ha fiirfiirinin waxaa laga yaabaa hadda laba qof oo sheekaysanayso qofna uu TV-ga remote saas xoog ugu jaqay oo ciil qofkaan inta ka soo qaylina labadaas qof ma communicate gareyn karaan misla hadli karaan qofku waxaa la rabaa wax walbo distraction iyo wax walbo internal noise wax la dhahay jiro oo buuq maskaxdiisa qof walba ku furan maalintii meelihii uu soo maray wixii uu soo arkay inuu ka soo qaataa laga yaabaa buuqaas waxaa la rabaa marka qofka la communicate gareynaysa buuqaas inaad damisid buuqaas dhan dami isku day marka qofku wuxuu sheegay inaa word by word u fahantid waxa badbaadi lahay guur badan uu badbaadi lahaa haddii dadka isfahmi lahaayeen haddii dadka isdhageysan lahaayeen hadday maqli lahaayeen waxa la sheegayo ayna ayaga waxooda intay calculate gareystaan ee madaxooda fahmi laheen midda kale waxaa waaye self image iyo reflection qofka bini'aadanka ee qof walba sawir uu iska haystaa jiro dad waxaa jira sawirka iska haystaan sawir xun inuu qof xun isku arko qof oo faa'iido lahayn qof waxba istaahilin dad isku arkaan way jiraan dad isku arkaan way jiraan inuu qof fiican yahay hadduu ka halaysan yahay sawirka iska qabtid naftaada ka qabtid isku day sawirkaas inaad dhistid waxaana ku dhisi kartaa in aad naftaada aad dhistid kalsoonida aad naftaada ku qabtid dhistid marka intaas iska soo dhistid oo adi qof toosan oo wuxuu rabo waxaa noqonaya marka qof dareenkiisa iyo hadaladiisa iyo ficilkiisa muhiim u tahay adi naftaada muhiim kula tahay because hadda hadii lagu xumeeyo aad tahay qof sawirka uu naftiisa ka haysto sawir qaldan ama qof xun oo macno leh waxba istaahilin hadduu qofku xumeeyo xitaa xanuunka dareentid ma ka hadli kartid because waxa u maleynaa dareenkaada inuu macno lahayn laakiin marka adiga ku yeeshid muhiimad naftaada kor u soo qaadid dareemahaada iyo hadalladaada waxa dhan waxa u yeelay muhiimad aday muhiim ku yihiin aday markay muhiim ku yihiin waxa dadka kale marka muhiim u yeelanay waxa ku qasbay qofka kale in hadalkaada iyo dareenkaada uu muhiimad saaro markaasna waxa yeelanay xaduudkaasna lama soo gudbi karo adi marka ay boundaries way marka boundary markaas wadamada hadda waxa u dhaxeeyo borders iyo boundaries soo maaha hadda Kenya kale hadda qof intuu iska baxo iska gudbo Soomaali ma gali karaa Soomaali hadda qof intuu iska soo ordo inuu tuugnimo soo galo ma Kenya iska soo dhaxgali karaa that's how it is marka qof walba waxa la rabaa boundaries markuu sameesto in la soo gudbi karin in qofka kale uu og yahay in uu soo gudbi karin meesha gabadhii hadda su'aasha weydiinayso kale waxay dhahday waxaas marka qof wax walba u sameynaysid oo asina ku garaneen waxa laga yaabaa in ay keento in qofkaas uu ogeyn gabadha inay xad leedahay ama xuduud leedahay ama boundary leedahay soo markuu iska step gareynaa maanta dhan wax walba suura uu sameynaa qofkii asagoo waxba consciously ogeyn waxa uu sameynaa iyo qaladka uu ku dhaqaaqayo boundarieska markaas sameeyso waxay badbaadinay xiriirka dhiman lahaa ama guurkii lagu kala tagi lahaa meesha looga kala tagi lahaa qofka asagana haduu boundaries yeesho adigana boundaries yeelatid iskuma xad gudbaysiin that's the word labada qof iskuma xad gudbayaan waxayna yeelanayaan common ground meel iskugu imaadaan oo labadooduba isla fahmaan mid kale waxa waaye ha ku dhagin waxyaalaha qofka ka xun waxa meelaha uu daciifka ka yahay oo negative ka yahay mar walba xoogaada waxa saarta meesha positive ka let's say hada Faadumo kale ninkeeda ilmaha markii la seexinaa habeenkii kale uu la seexinaa guriga uu la hagaajinaa wax walba uu la qabtaa laakiin wuxuu ka xun yahay markii la dhaho waxaanayto biilka soo dhiib iyo koronto waxaan soo dhiib uu ka xun yahay ma soo dhiibo marka waxa laga rabaa Faadumadaas oo kale in ay xooga saarto in uu habeenkii la saaciday ilmaha markii la seexinaa maybe ilmaha way dib badan yihiin seexiskoodana waqti badan u qaataa marka intaas inay xoogeeda saarto waaye ee fiiriso intay fiirin lahayd
okay inta ay fiirin lahayd maxaa la dhahaa in uu biilka soo dhiibin marka anaga badanaa waxaan naqaanaa biilka ninkan ma soo dhiibo wax uu ila sameeyo ma laha waxyaalihii kale oo muhiimka ahaa fiiri waxaa saartaa awood sii adduunkaana ma jiro qof 100% ah midda kale waxaa waaye isku day qofka inaa u muujisid wixii aad dareentay badanaa waxaana dila waxaa waaye annaka qofka wuxuu dareemaa si xun ma muujinayo way la aamuseen because ayada waxyaalihii expectationkeedii oo familigeedii ay ka lahayd expectationka ay lahayd intay xiriir galin waxaa waaye qof aanan isla murmin dhib la'aan wax walba toos inay u noqdaan mana noqonayaan let's say hadda example kale aan siinaa gabadha waxay guursanaynin oo maybe asaga familigiisii waxaa laga yaabaa hooyadiis iyo aabihiis hooyadiis mar walba inay shaqada iyo wax oo dhan kala qabanaysay ee maamulka guriga dhan haysay ayadana waxay ka imaatay guri hooyada iyo aabaha mar walba isgarab taagan yihiin oo wax walba isla qabanayaan ayada expectationka lahaanays waxaa waaye nin mar walba garab taagan oo wax walba la qabanayo asagana tuu lahaanayo waxaa waaye asoo journalist karsana iyo naagso jikada ku jirto wax karinayso marka labadaas qof ma iskeenayaan ma isma haddii isfahmaan laakiin haddii laga sheekaysto ka waran hadduu dhaho ka waran ani hooyaday mar walba iyadaa xilka hayn jirtay intaan guursanin ka horna waxaan rajeynaya qofka aa guursanaya in uu xilka guriga dhan hayo ayadana ee u sheegta ka waran meel oo dhexayso laskuguma imaanayo marka haddii iyada la aamusto badanaadka waxaa waye waxa dhaco dareemku iyo dareemeen ma sheegayaan waxay sameynee maybe alaabtay dhaqay joornaal uu akhrisanaa saanay u fiirinay ciilaa ka qabanaya alaabtay sii dhaqay haddana ciilaa ka sii qabanaya ma u sheegayso inay la aamustaa laga yaabaa marka mar walba susaas u sameynayo wixii iyadan ciilkin uu ugu kordhaayo hal mare ku qarxee maxaan imaanaya meeshii in asaga waxay sheegaysa uu fahmi waayo because iyadu waa wax muddo dheer ay soo waday tan kale waxaa waaye waxaa hadashaa hadda midii hore waxay ahayd dareemkaada sheeg waxaan isku daydaa qofka kale wuxuu viewgiisa iyo waxaas uu arko inaa ogaatid tan hadda waxaa waaye maskaxda madaxaada ka hadal markuu madaxa saa u fikiraysid dadka badan waxyaalaha ay ka fikiraan ma sheegaan waxay u sheegaan si qaldan because waxay ka cabsanaa hadday sheegaan in la aqbali waayo ama loogu ogolaan waayo wixii uu qofkii dareemayo markaa xanaaqdid markaas sheeg ha dhigin meel ha dhiganin haddaa meel dhigata adee ku dhibee adee kugu soo laabanaysaa tan kale waxaa waaye tilaabada koowaad adi qaad dad badan hadda meeshaan fadhiyaan waxaa laga yaabaa in dhibkaan waxaa dhan aan sheegaayo noloshooda ka mid tahay oo qayb ka mid tahay oo dhibka ay dhex taagan yihiin ee isdhahayaan maxaa ka qabtaa hadda marka hadda waxaa kuu sheegaa tilaabada koowaad adi qaad inta TV-ga iga dhageysanaysane oo ay fiirsanayaan sitting roomkooda iga fiirsanayaan haddaa ku jirta xiriirkaas oo kale tilaabadaas adiga qaad tilaabada ugu horeysa adiga qaad oo isbedelka ku keenaysid macnaheedu maaha inaad daciif tahay macnaheedu maaha in lagaa raayo macnaheedu maaha adi inaad ka daba ordaysid qofkii macnaheedu waxaa waaye in aad isku dayaysid guri baabi'irab inaad dhistid ama aad toosisid ajirkaas dhan adaa lahaanaysid midda kale waxaa isku sabar in laisku sabro qof 100% ma jiro waxa anaga dumarkeena dilan waxaa waaye waxaa rabnaa ninka inuu 100% noqdo waxba inuu baqaldinbo taasna macquul ma noqonayso waxaa la rabaa inaad sabartid meelihii uu daciifka ka leexatid isku day inaad indhahaada ka daboolatid midda kale waxaa waaye maybe tanna faa'iideynii tahay dad badan ma yaqaanaan dadka guriga joogaana faa'iide u noqonee waxaa waaye in labada qof ay samaystaan tools ama waxyaalo ay ku wada hadlaan let's say hadda laba qof waxay imaanayaan meel la buuxo kale ama aroos oo kale ama xaflad oo kale naagta waxay sameynayaan in waxyaalo oo dhibaayo ninka marka ma inuu isla markuu imaado ku qayliyo maxaa saan u sameysay oo meesha iyo murun iyo hadal hoos loo dhigay la isku cuno meesha ma aha waxa labada qofka inuu ama waxa yeelatiin toolskaas waxa kamid ah calaamado kale calaamadda T oo kale T aan dhaho ama H ka dhigan hadal oo kale waxa isu kartiin taas oo kale ama T yaa dhahay ina bixi way banaanka ku hadalnay which means idinkan ceebti idinka celinay waxaan yeelanaysiin si oo fiican oo iskula hadli kartiin taasna waa muhiim mid kalena waxa waaye isku day in aad doonatiin
banaanka inaad ka doonatiin assistance iyo dad kale oo idin saacideyn karaan ama dad idinka khibrad badan ama dad life coaches ama dad idinka experience badan inaad la hadashiin gabadhi waxay dhahday dadka banaanka waxay dhahaan mar walbo saan sameey badanaa dad banaanka dadka jooga waxay u badan yihiin dad xanuunsan marka advice ka doonatid iyo talo waxay ku siinayaan talo xun oo sun ah waa isdili kartaa hada gabadhiis disho kale marka isku day dad sax ah inaad u tagtid dad kula fahmi karaan ama wax kaala qaban karaan inaad u tagtid in labada qof ay u tagaan waa mahadsantihiin cashirkii maanta intaas ku xiran yahay